bilaabin waa garan karaa in wax badan aad fadhideen waxaan idinka codsanayaa wax yar oo jimicsi ah haddaa iga ogolaataan inaad hal mar istaagtaan wax yar oo markaan iraahdo Soomaaliya aad tiraahdaan guul markaan iraahdo Soomaaliya aad tiraahdaan gobonnimo Soomaaliya 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 gobonnimo Soomaaliya Soomaaliya okay waa mahadsantihiin fariist xoogaa yaroo jimicsi waa loo baahan yahay waxaan runtii aad idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah oo aadna siiseen waa waqti dambe waad noo timaadeen halkan runtii ma ahan xaflad waa isu imaatin aan kaga wada hadlayno arrimo maaragtay muhiim ah isbarasho isku baraarujinayno waxa muhiimka ah oo waddankeena yaala marka inay taas suurta gasho ilaahay ka sakow waxaa ka qayb qaatay dad badan oo igu taakuleeyay aan jeclahay inaan u mahadceliyo marka hore way is og yihiin waxaa intii aan imid magaalada aan la kulmay dad badan oo hadda aan ku dari karo liiska saaxiibaday aan aqaano oo runtii ayaguna dhiirigelin dhagaysiga ay dhagaysteen odayaasha halkan ka hadlay waad wada maqlayseen ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa maamo Dalays iyo maamo Nakrumo oo habeenka ugu horeysayba markaan imid aan salaam ugu tagnay kadibna yiri waa ku jirnaa waxaan u mahadcelinayaa fanaaniintii halkan ka horeysay oo halkan ka heestay runtii heeso guubaaba leh ayay ahaayeen waxaan rabaa hal qof dadkoo dhan si fiican uguma wada mahadcelin karo laakiin qofka aan rabo inaan aadka ugu mahadceliyo waa ka baxay aan u malaynahaa qolka hadda waa ninka la yidhaahdo Yobabe mahadcelin iyo salaan kadib Toronto waa caasimadda qurba joogta Soomaaliya waa magaalooyinkii ugu horeeyay ee Soomaali ay nolol iyo nabadgelyo u soo raadsato xilligii dowladnimada Soomaaliyeed si daciifaysay oo burburaysay muddadii intaa ka dambeysay ilaa maantana Soomaalida ku nool Canada ma aysan iloobin dhulkoodii hooyo waxaa muddo dheer aad taageerayseen dhaqaalo u dirayseen dadkiinii waxaadna si guud uga qayb qaadanayseen dib u dhiska Soomaaliya xitaa waxaa halkan ka yimid mas'uuliyiin qabatay xilalka ra'iisul wasaare xildhibaan wasiir safiir saraakiil ciidan iyo jagooyin kale oo fara badan waxaa halkan ka tagay ganacsato macallimiin fanaaniin iyo dad kala duwan oo dhammaantood soo noqoshadoodu ahayd mid waxtar leh oo dalka waxtar u leh laakiin maanta waxaan anigu Toronto u imid inaan ka helo taageero maxay tahay taageeradaas waxay tahay inaad iga aqbashaan inaad hormuud ka noqotaan inaad horseed ka noqotaan soo celinta midnimada Soomaaliyeed taasaa runtii aniga taageero ii ah waanu ka wada dharagsannahay muhiimadda ay leedahay midnimo Soomaaliyeed balse wax yar aan idin sii ifiyo tan iyo intii aanu bilownay ololaha tartanka doorashada oo aad sida aad hordhac ku aragteen aan socdaal ku maray dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay dad badan weydiiyeen sidee dalka wax uga qaban kartaa waddankii waa la haystaa arrinkaas waa arrin Soomaalida oo dhan ku jira markaan joogay Gothenburg Sweden waxaan iri dadka waxay weydiin karaan su'aalo
waxaan nirsi aan waqtiga u safe garayno waxaan ka dalbaday dadka inay su'aalahooda ay qoraan 10 su'aalood haddii la weydiiyey 8 ama 9 waxay ku saabsanaayeen waxaan ka yeeli doono wadamada dariska ah ayagoo qaarkood magac kusii dhufanayo lahaa maxaan ka samayn doonaa caawa idinkoo aan su'aasha weydiin aan jawaabta idin soo hormariyo marka dalkeenna waxaan ku hanan karnaa nabadgelyadiisa ku sugi karnaa dhaqaalihiisa ku horumarin karnaa dowladnimadiisa ku adkeyn karnaa markaan isku kalsoonnahay oo isku duubannahay oo midaysannahay taariikhda adduunka markaan dib u raacno oo darisno boqortooyooyinkii iyo embaradoriyadihii jiray ilaa ku dhawaad 2000 oo sano laga soo bilaabo romaankii ilaa maanta waxaa dadka iyo dalalka la rabo in la maamulo lagu xukumi jiray istaraatiijiyad la yiraahdo qaybi oo xukun waxay u baahan tahay 2 shuruudood oo kaliya in dadka la qaybinayo uu ka dhaxeeyo tartan ama xin ama dagaal badhe kuwa raba inay xukumaanna waxaa laga rabaa inay fahmaan oo kaliya dadkaas waxa hoose oo ka dhaxeeya inta kalena istaraatiijiyada iyada iswadaysa markii aan kalmadaha midnimadeenna iyo wadajirkeenna uga dhigay astaanta ololahayga ayaa nin wuxuu ii soo qoray sootii la isku ogaa federalism maxay tahay midnimada aad ka hadlaysaa laba waxyaabood yaan la isku khaldin nidaam ama qaab dhismeedka dowladnimo ama wax la yiraahdo system of governance iyo dal iyo dad aan qaybsami karin yaan la isku khaldin waa laba wax oo kala duwan macnaha the unity of a country and its system of governance tusaale ahaan United States of America waa United States of America waa hal dal oo ka kooban 50 state ama 50 gobol oo isu tagay laakiin waa hal dal United Arab Emirates intii aysan modoobin 1971 ka hor waxay ahaayeen 5 ama 6 mid 7 ku soo darsoontay mar dambe laakiin waa hal dal walaalayaal inaan ka hadalno midnimada dalka iyo tan shacabka Soomaaliyeed ma aha waxaan ka gabanayn mana aha waxaan uga baahannahay in cid kale ay wax nooga sheegto maxaa yeelay jiritaankeena dal ahaan ayaa ku xiran midnimadeena hadda waxaan aad uga xanaaqaa mararka qaarkood markay dad ajnabi ah weydiiyaan waddanka u dhalatay oo aan ku jawaabo Soomaaliya markaas qofkii isagoo raba inuu ku tuso inuu yaqaan Soomaaliya ayuu ku weydiinayaa which one gormay Soomaaliya 10 dal noqot Soomaaliya waa mid dadkeeduna waa mid waa ogolahay midnimadeena siday u adkayd uma adka maanta sidee ku adkeyn karnaa midnimadeena waa inaan si furan uga wada hadli karnaa kalmadda dib u heshiisiin maanta way macno beesh sababtoo ah 16 heshiis oo dhacay waxaa la yiri waxay ahaayeen shirar dib u heshiisiin runtii shirarkaas waxay ahaayeen kuwo dowladda lagu soo dhisayay oo jagooyin lagu qaybsanayo ma aysan ahayn shirar dib u heshiisiineed anigu waxaan u arkaa dib u heshiisiin aan ku raadinayno midnimo Soomaaliyeed inay tahay jidka kaliya oo aan uga bixi karno
waqtigan adag oo hadda aan ku jirno waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo hadalkii ahaa dalku waa la haystaa waxaan rabaa inaan ku jawaabo sidaan dalkeena waa xor laakiin gobonnimo ma haysan xornimo waxaynu qaadanay 1960 laakiin gobonnimadeennii way luntay su'aasha aan dib idinku soo celinayo waa war maanta dowladnimo waa haysanaaye ma u istaagi karnaa dib heshiisiin aan ku abuurayno kalsooni ay isku qabaan dadka Soomaaliyeed oo keeni karta midnimo Soomaaliyeed oo aan ku soo celin karno gobonnimadeennii waa sababta idin lahaa Soomaaliya guul Soomaaliya gobonnimo hogaamiyaha runta ah waa mid xaqiiqada ka sheegi kara xaaladda lagu jiro waa mid dadkiisa u sheegi kara runta oo oran kara jidkaan ku soconnaa waa khaldan yahay aan isdaba qaban waa mid dadkiisa u sheegi kara waxa aysan markaas la jooga jeclaysan laakiin u fiican mustaqbalkooda ama aayahooda walaalayaal waxaan qabaa marka inaan maanta la joogo waqtigeenu si dhab ah uga tashan lahayn danaheenna iyo aayaheenna maxaa yeelay inta badan xaaladda siyaasadeed ee dalkeenna waynu ka sheekaysanaa sida hore loo yiri waa ka walwalnaa laakiin way yartahay intaan Soomaalinimo aan isugu nimaadno inaan iraahno maxaan qabanaa si xaaladda dalkeenna aan wax uga bedelno waxaan ahay musharax u istaagay inuu Soomaali ku baraarujiyo inay dalkoodii iyo dadkoodii aysan cidna u maqnayn inay ogaadaan waqtigana uu yar yahay waxaana si toos ah idin warsanayaa taageeradiinna waan ogahay inaydan iyo codayn karin sidii halkan laga sheegay balse inaad igu dhiirigelisaan sii wadista halganka isbaraarujinta inaad igu sii dhiirigelisaan sii wadista halganka isbaraarujinta in Soomaalidu ka tashato aayaheeda ayaan idinka rajaynayaa caawa taageerayaashu qaar waxay bixiyeen dhaqaale kuwa kale waqtigoodii ayay tabaruceen kuwa talo ayay bixiyeen kuwa waxay yiraahdeen inaan ku dhageysanaan rabnaa waa yimaadeen kuwa ismadooda iyo duubabkooda iyo xildhibaanadooda ayay la dardaarmi doonaan والله قصلي قف waliba waa muhiim waxtarkiisa ama aan iraahdo waxtarkeeda waa loo baahan yahay waxaana ka codsanayaa inuu qof waliba wuxuu qaban karo uu qabto maxamed ahaan waxaan aaminsanahay inaan ahay musharaxa haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ilaahay idinkiis Soomaaliya gobonnimadeeda soo celin kara waxaan aaminsanahay inaan ahay musharax haddii uu ku guuleysto Soomaaliya ka saari kara dhibkan ay ku jirto